badnaayeen farax laanjeer waxa kamid ahaa isagoo hargeysa jooga waxa dhacday aroos meel aroos sama ka dhacay hargeysa meel aroos la yar ku xasuumanaya laanjeer oo kaalay nimankaasna niman reer bari abay ahaayeen reer barigan hadii jeer hargeysa waa la sub bidaayo wax la yaaxo ma taqaaniin dabeetana niman reer hargeysa oo laakiin bari ka soo jeeda ayaa laanjeer xasuumay waxay yiraahdeen aroos maalka ka dhacay arooskiiba dhacay habeenkii dambe marya cas buu soo gashay laanjeer oo ah kuwii miyiga kala yimid isagoo daantaas iyo la soo daantaansado doonaya dabeetana inaan askariyada baa shaabu ku dhufatay oo tirkadiga ma ka kacoodu si aan wanaagsanayn dabeetana niman ciidan gala ama faanay oo arooska lahaa reer geysa markii cabaar gabaya faana tiriyeen buu waxa dhacday ayaan qoladiina reer baridi ku idin maraya laanjeerna laguma oga meesha in joogo yaa idinka jawaabi doona waxay ka yidhi dafida nooga jawaabaya laanjeer waa soo kacay waxaana uu bilaabay geeraar yar oo gaaban oo ka horeeyay gabayada uu marin doono wuxuu yiri erey wayga arooska ereyna wayga hablaha kan ereyna wayga gabyaaga buush erey wayga arooskee labada is arkooday isku aaminay guurka amaantiina ma gaadhneen labada is adeeco bad khayr ka beerma Allah idinka yeero buush ereyna wayga hablaha kan sidii arki docoodo ayaamahan qatanaado ilka isla dhacaya ama awr mala soo geelay ayri yalaan iyo abeerkii lagu qoojo eryanaya banaanka udub xooga dagaalka ka amaamudaya meeshu waa urur weyn oo aroos gaafiyahay weeyo khiyaar baa ka qabeysay aslax ma u fadhinaayay si eebiyo qaariyo ula leesu istaayay isku soo ordaya ereyna wayga gabyaaga waxaan haynin abwaano intiina ka da'weyno gaafka loo igmaday sida arkli baaxan inta fadhiyo amtaas uu ka hayaay maxaa la arki weyn dhax loo furi waayay buush markaas la soo dhaweeyo halkii VIP da la geeyay markaas uu gabayadiisii bilowday ni 20 wiil iyo aduun ladan ku faalooday لا لو علبكي ورمها لاعبنا اسمودي لما انا كو يالي لا شوليدو قبي لكثر درقسن لوغي فوق waa loo yar ka hadlaa laanjeer wax la yiri waa libinta geeraare markay gabayga leeguma lagdo waa la xaadsaday sida loodka iyo waligan liid asleeyahay lafta reer saqban ku allaanta ugu dheere lag milyuuna bay haybtayadu 2,000 dheerayde anigoon la caabayn hadaan luru kamaandeeyo yey loodin kara soo arliga leexa qarin mayso libax lama shuqeeyay sidee loo lugay caawa buu yiri tabtaranin marfashka joogay ama arooska joogay oo ciida galaha waxa yiri uu yiri oo qayilayo qaad badan iyo biibs iyo kookeen hor yaali ayaa wuxuu yiri toonikaasi garxij Ismaaciil kale ma ninkaas sheegtay laan dheeraha waa garxij suul tabtara wuxuu bilaabay gabay ku sheeganay ciida uu yahay wuxuu yiri ku baliiray baadiya tigaad bayti iyo raaxo buqdhaadhiga xareed iyo markay barisamaad joogto bildanka iyo gaafiyada hadii la iska soo buuxsho this time-ka waa laga silmaa booli xooftada baada gabay bidhiir iyo calan bara ku dheeraa beedkii gamuutiye salaan way banaan yahay ismi maxamed nuur yar rasaas baydaraan ahay boqortiinadii qaaje iyo biligi leesaariye boongaarta iguma baxdiyo burunti geeraare aan bayaansho beedgaabyada booliin dabadeed dad xawaal abaadoon iyo badan ka dhoofaa bunji iyo shiraaq mawjadaha booda ma xijaan balaaksi ma yaacan sidii baani heegyada barigay tubnaanintii baxarku qooqnaa biinooyada lagu maraabaxad sooraha fadharjaada baariga furteed bidixu jeegay marka ay bigeeskii dirtaan biibs iyo kooke baarlamaan prime minister buu badi ismooday bakooradaha qoolaaban iyo baaraha hoday balaadu saxiixa bandari bog isku waabay barmana ma hadalkii qodaha lagu bilaabay biladgeesidii baa sitaabari ragii yiil burmadkii labahan hay buurti jamal qaafi baasaha colaadan sidii bam u firdhaadhay waxa la igu baaqbaaqaya baarax nabadeed mar hadaan bashalaq dhiig arkiyo boobta iyo weerar baacan saru bixi jiraan baawar leeyahay birta sulubku biixida lafaha waa burburisaa baarkii saaqan ku albaha xabuusheed booday mushharad caawa boolo waafihi buu